shirkada isgaadhsiinta Somtel ayaa maanta xaflad ay ku soo bandhigaysay barnaamijyo cusub isla markaana ay ku gudoonsiinaysay macaamiisheeda Abaal marino ku qabatay xarunta guest house ee magaalada Boorama. munaasabadaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay macaamiisha Somtel gaar ahaan substationada iyo dukaanada. waxaa kale oo ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay dawladda oo ay ugu horeeyay taliyaha hoggaanka ciidanka booliska Somaliland Maxamed Xaaji Nuur, taliyaha qaybta gobolka Abaal Maxamed Cabdi. waxaa halkaasi ka hadlay maareeyaha shirkada Somtel ee gobolada Abaal iyo Saleebaan Cabdilaahi Muuse iyo waxqabadkii shirkada Somtel intii ay jirtay iyo barnaamijyada ay soo bandhigayso. waa shirkad cusub oo waqti aan runtii fogeyn la asaasay oo runtii hawlaheeduna ay kooban yihiin, laakiin waxaad moodaa dadka xawaare xooga inay qaaday Somaliland guud ahaan iyo gobolkeena gaar ahaanba. taasina waxay ku timiday maamulkeega fiican iyo nidaamka kala dambeynta ee ka socda shirkada dhexdeeda iyo qalabka casriga ay adeegsanayso oo sida runtii dhammaantoodba wada ah wireless waxa intaa noo raaca macaamiishiina iyo dukaanada iyo substation naga iibsada oo si firfircoon runtii noola shaqeeya. saddexdaas arrimoodba waxay keeneen inay shirkadu iyadoo muddo yar jirta haddana ay xawaare dheer runtii ay goyso ayay keeneen. marka shirkada Somtel waxa weeyaan shirkadaha maanta aan oran karno horumar bay ka tahay isgaarsiinta Somaliland guud ahaan. waxyaabaha qabatina sabab arkaysiin waxa weeyaan waxyaabo u adeegaya bulshada weeyaan. telefoonada noocyadooda kala duwanaa, telefoonkii madaxa ahaa ee awal xariga la jidi jiray ee waqti badan qaadan jiray ama xariga dabadha ay googoyn jireen waxay ku bedeshay telefoon kale oo wireless ah oo qofku sidii mobilka kale isticmaalayo. madaxii telefoonku soo qaadanaya sidii wuxuu isticmaalaya mobilka kale, baabuurkiisu ku qaadanaya, dukaankiisu dhiganaya, uu iska sii qaadanaya, wuxuu la tegayaa maxay ahayd aqalkiisu la tegayaa, hadduu doono baadiyu la tegayaa. يعني meel kasta oo mobilka ka baxayo isagana uu uga baxaya. taas waxay fududeysay inay dadku si dib u qaadan karaan telefoonada waliba madaxa ay si dib u qaadan karaan. waxa kale oo inta raacda nidaamka FOIP-ka oo ah telefoonada dadka dibadda laga soo hadlayo. waxaa kale oo halkaasi ka hadlay madaxa suuqgeynta gobolada Abaal iyo Saleebaan Master Maxamed, la markaana ku adkeeyay xiriirka ka dhaxeeya isaga iyo macaamiisha Somtel. waxa kale oo ku dheeraaday sida ay muhiimad gaar ah u siiyaan iyo qadarin macaamiisha Somtel. waxaad ku ogtihiin adeeg hufan ay leedahay, daacadnimo ay leedahay, amaano ay leedahay, horumar kobcin dhaqaale ay leedahay. taasi oo ah halka dollar waxa lagu hadlaa 5 saacadood. halka dollar waa 300 milyan gudaha weey. taa waxa dareemi karaysaa duruufaha dhaqan dhaqaale ee ka jira Somaliland ma wada saamaxayo qofku inuu $1 ku shubto 27 minute ama 20 minute ku hadlo shirkadaha qaarkood. waxa loo baahan yahay sidaan idin sheegay in qofka marketingku yahay loo yar. shirkadda waxaan kala doontay in ma sha Allah ay u jabiso mujtamaceega si qof walba uu hadli karayo, taajirku uu hadli karayo, qiirkuna uu hadli karayo. laakiin shirkadaha qaarkood waxa moodaa in dadka jeebkooda dhexdhexaadka yahay iyo qofkii sareeyo qorigu hadli karayo. laakiin Somtel waxa hadli karaya qof kasta uu awoodaa inuu $1 ku shubto 5 saacadood oo ku hadlo. taajirkii fiqiirkii dhexe waa laga wada sameeyay. laakiin shirkadaha qaarkood waxa moodaa halka $1 ee lagu shubto waa 20 daqiiqo lagama wada sinna, qofna uma saamaxayo duruufo. marka taa la ajilgeed annagoo ka duulayna in shirkadu mar walba ay macaamiisheeda raali geliso ayaanu saakaydu ku dhiiri gelinayna in barnaamijka e-voucher oo ah adeegga elektarooniga inuu idin saamaxo saakay inaad ka hirgelisaan mujtamaca dadweynaha si uu u saamaxo inaad hawlaha u fududeysaan oo qofkii gurigiisa joogay loogu shubi karayo. waxaa kale oo halkaasi ka hadlay Maxamed Xaaji Nuur oo taliyaha hoggaanka ciidanka booliska. kale oo halkaasi ka hadlay Maxamed Cabdi, taliyaha qaybta ee gobolada Abaal iyo Saleebaan
waxaa kaloo halkaasi ka hadlay qaybo ka mid ah macaamiisha Somtel kana warbixiyay sida ay ugu faraxsan yihiin xiriirka ka dhaxeeya iyaga iyo shirkada ooda Somtel. dambeyntii waxaa halkaasi lagu gudoonsiiyay Abaal marino dhowr ah macaamiishii Somtel kuwaasi oo loo eegay Somtel iyo sida ay u kala isticmaal badan yihiin. waxyaabihii halkaasi laga bixiyay waxaa ka mid ah taleefanada wirelesska iyo mobillo gudoonsiiyay ayaa waxaa ka mid ahaa Fin Amuud Shop ayaan le shop waxaa la siiyay Hilaac Substation Djibouti Substation Adar Maxamed Xasan shabakada wararka Xidig News magaalada Boorama.